waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. bismillahi raxmaan raxiim. waxaanu qaban doonaa casharkeenii foontriga ee organic chemistryga. waxaynu maranay oo hore u soo qaadanay chemical propertyga ay leeyihiin alkaynku ayaynu hore u soo qaadanay. waxaynu halkan ka sii wadi doonaa haddii ilaha ogolaado casharkeenii saddexaad oo noqonaya tables of formula. organic chemistrygu wuxuu isticmaalaa qawaacid ayuu isticmaalaa. qaacidooyinka organic chemistrygu isticmaalo waxa ugu muhiimsan ilaa 4 qaacido ayaa ugu muhiimsan, waanay ka badan yihiin 4 qaacido. marka haddaynu tables of formula ka hadlano waxaynu aad u qaadan doonaa molecular formula, displayed formula, structural formula and skeletal formula ayaynu qaadan doonaa. hadaan ugu soo horeysiiyo molecular formulada. waxay tilmaamtaa molecular formuladu ama ay ka hadashaa molecular formuladu waxay ka hadashaa shows waxay muujisaa the total number or actual number of atoms present in a molecule of a compound. waxay noo sheegaysaa wadarta tirada atomiska ah ee laga helayo molecuulka ama tirada ugu macquulsan ee laga helayo molecuulka ayay noo sheegaysaa. tusaale ahaan haddaan imanka ka hadlaya hexane waxay ka kooban tahay 6 kaarboon iyo 14 hydrogen, waana tiradii ugu badnayd ee atomiska ay ka koobnayd hexane oo waa 6 kaarboon iyo 14 hydrogen. displayed formula waxa kale loo yaqaanaa qaacidada soo bandhigitaanka ayaa la yidhaahdaa. soo bandhigidda waxaanay soo bandhigaysaa dabar kasta iyo atom kasta ayay noo muujinaysaa. dabar kasta oo koofaalana way soo bandhigaysaa, atom kasta oo meesha ka muuqanayana waa lagu arkaya. masalan imika haddaan ka hadlayo hexane waa 6 kaarboon iyo 12 hydrogen oo aan ka dhigayo displayed. waxaan isku xidhayaa 6 kaarboon ayaan isku xidhayaa. baan isku xidhayaa markaa 6 kaarboon 1 2 3 4 5 6 kaarboon hareeraha waxa ka xiga 12 hydrogen. kaarboonka ugu horeeya wuxuu leeyahay 4 dabar, mid ka mid ayuu isticmaalay, 3 kale wuxuu ku qabsanayaa hydrogeno. 3 kale waxa uu ku qabsanayaa hydrogeno. 3 kale wuxuu ku qabsanayaa hydrogeno. kaarboonkan kale wuxuu isticmaalay 2 dabar oo ka mid ah dabaradiisa waaye. 3 kale labada kale soo haray wuxuu ku qabsanayaa 2 hydrogen, saasoo 4 dabar markaa ku isticmaalay maadaama uu yahay kaarboonku tetravalent uu yahay. waaye kaarboonka labaad isna waa kadaalika inuu la mid yahay, markaa 2 hydrogen ayaan ku xidhayaa. kaarboonka saddexaadna 2 hydrogen ayaan ku sii xidhayaa. kaarboonkan kale haddaad eegto isagana 2 hydrogen ayaan ku xidhayaa. kaa ugu dambeeya ayaa 3 qabsanaya, waayo keliya wuxuu isticmaalay 1 dabar oo ka mid ah dabaradiisa marka hore, markaa 3 hydrogen buu qabsanaya. markaa 12 hydrogen saasay ugu dhegayaan. wax qaacidada noocana waxa la yiraahdaa markaa displayed formula. maxaa muuqanaya atom kasta? kaarboonku wuxuu muuqanayaa si separate, dabar kastaana wuxuu muuqanayaa si separate.
dabar kasta waa la arkaya marka shows all covalent bonds and all atoms present waxay muujinaysaa dabar kasta oo kamid ah dabarada covalent-ka iyo atom kasta oo kamid ah atamada qaacidada laga helay ayaa ka muuqanaya displayed formula waa qaacidada soo bandhigida structural formula dii laga hadlayo structural formula waxay tilmaamaysaa iyaduna structural formuladu waxay muujinaysaa how atoms are joined si atoms isugu xidhan yihiin ee ugu xidhan yihiin muxuu ahay in a molecule qaabka atoms ugu xidhan yihiin molecule-ka ayay noo muujinaysaa iminka haddaan halkan ku arkayo hexane waan doonayo structural formulada ay leedahay horena aynu soo sheegnay displayed formulada bal structuralku maxay noqonaysaa waxaan mar kale odhan karnaa structuralku waxa weeyaan waa displayedka oo loo qoray simplified way hab muxuu ahaye sahlan ayaa loo qoray iminka masalan haddii aan ka dhigayo tan structure waxaan leeyahay kaarboonka koowaad displayedku maan ka soo gaabinayaaye kaarboonka koowaad waxaa ku dhegsanaa 3 hydrogen marka waa CH3 amaba haddaynu si loo wada fahmi karo u muujino horta 6 kaarboon isku xidh 6 kaarboon isku wada xidh 1 2 3 4 5 6 waa 6 kaarboon oo saas isku xidhan waxaan isweydiinaya kaarboonka ugu horeeya imse dabar buu isticmaalay wuxuu isticmaalay hal dabar markaas saddexda kale wuxuu ku qabsanaya hydrogen marka halka hydrogen baa ku qoraya saddexun baan hoosta kaga qoraya marka kaarboonkaas wuxuu haystaa 3 hydrogen iyo hal kaarboon oo kale ayuu ku dhegsan yahay kaarboonka labaad hal dabar buu isticmaalay laba dabar oo kamid ah dabaradiisa wuxuu ku qabsanayaa maxay hydrogeno markaas ku dhameystiray kaarboonka saddexaad wuxuu isticmaalay laba dabar laba hydrogen baa ku dhagaya kana waa la mid laba hydrogen baa ku dhagaya kaasna waa la mid laba hydrogen baa ku dhagaya ka ugu dambeeya ayuu baa 3 hydrogen ku dhagaya sababtoo ah ama 3 hydrogen ayaa dabar la sameynaya covalent way sababtoo ah hal dabar ayuu hore u isticmaalay aynu eegno qaacidada ku xigta oo loo yaqaan skeletal formula qawaacidan organic ayaa loo isticmaalaa waana compulsory inaad barato tani waa advanced chemistry ayaa aad loogu isticmaalaa laakiin haddana tusaale ahaan iyadana waynu eegoon shawis waxay muujinaysaa the carbon skeleton keliya waxaa la muujinayaa qalfoofka carbon leeyahay ayaa la soo bandhigaya waaye functional groups-kana waa la muujinaya functional groupka ku yaala waa imika inagu functional group fara badan ma aynu baran kaliya waxaan qaadanay alkane oo dee single covalent oo aan functional group kala aan lahayn laakiin se haddii ay jiraan imika functional groups-ka alcoholiska oo kale waa la muujinayaa OH groupka ay leeyihiin hadday carboxylic acid ay jiraan functional groupkooda laga tegi maayo ee waa la muujinaya iyagana carboxyl groupka ay leeyihiin other functional groups-ka kale jira organicada iyagana waa la isticmaalaya mid walba waa la muujinaya laakiin kaliya kaarboonka qalfoofkiisa hydrogen la muujin maayo waa omitted iyada maaha mid la muujinaya maaha waaye haddaba haddaynu ku soo bandhigano skeletal formula qaacidada loo yaqaano butane gas ayaan ku soo bandhigaya butane waa 4 kaarboon 4 kaarboon qalfoofkoodu ma sawiraya masalan waxaan u sawirayaa si sagsaaga oo kaarboonku qaabku isku qabsadaa maaha straight marka laga hadlayo qaabku isku qabsanayo ama geometrigiisa straight maaha wuxuu isku qabsanayaa qaab sagsaaga sababtoo ah angalka uu muujiyo ee tetrahedralka kaarboonku maaha muxuu ahaye 90 degree maaha ama 180 degree maaha waxa weeyaan inuu dhaxaysa waa 100 iyo 9 iyo badh baa la yiraahdaa 109 iyo badh degree maadaama uu ka yahay waxaan u sameeynaa qaab sagsaaga marka kaas waa wuxuu taagan hal kaarboon waa kaarboonkii labaad kaarboonkii saddexaad iyo afraad tan waa isku xidhaya marka tan qaabka noocan oo kale isku xidhaya
kaas waxa weeyaan skeletal formula oo afartii carbon hydrogentii lama muujin kaarboonka qolfoofkiisu baa la sawiray iyaga masalan haddii aan lahayd hal alcohol oo kamida ama alcohol sidee aan lahayd any alcohol hadii aan lahayd functional group kooda la muujin lahaa hadii double bond lahaan lahayd waa la muujin lahaa marka haddii halkaas ku yaalo double bond waa la muujinay masalan haddii ku yaalo functional group ka alcoholiska ay leeyihiin oo ah OH group isagana waa la muujinayaa oo laga tagi maayo taasina waa taa way marka types of formula afartaas ay naga filan laakiin waxa jira empirical formula oo iyaduna kamida types of formula kamida waxa jira condensed structural formula loo qoray la sii koobay oo la soo ururiyay iyaduna way jirtaa laakiin inta fontriga aadka inoo anfacsa waxa way waliba saddexda ugu horeeya structural formula displayed formula iyo molecular formula in ardaygu saddexda si fiican u yaqaano fontriga ahi way waxaanu ka hadli doonaa oo kale isla casharkan kaga warrami doonaa isomeriska marka isomerisku way badan yihiin marka isomeriska laga hadlayo laakiin waxaynu fontriga aad ugu eegi doonaa qaybta loo yaqaano structural isomeris iyadana waa la qaybiyaa ilaa saddex qaybood baa loo qaybiyaa marka laga hadlayo form 4ka waxa loo qaybiyaa chain iyo functional group iyo position marka kaynu ka hadlanaa waxa weeyaan chain isomerism waxa kala duwanaanshaha u dhaxeeya xagga qaab dhismeedka uu kaarboonku isku haysto kaarboonka qolfoofkiisu ama kaarboonka silsiladiisu qaabka ay isku haysato kala duwanaanshaha u dhaxeeya ayaynu eegi doonaa marka ereyga haddaynu dul istaagno ereyga iso iyo mar ayuu ka kooban yahay ereyga iso means waa same waxana waa isku mid oo wuxuu leeyahay same molecular formula ayuu leeyahay way ereyga mar haddaan ka hadlayana waxa uu leeyahay muxuu ahaayey waa parties qaybo marka qaybahan laga hadlayana waxa weeyaan waa qaababka kala duwan ee uu muujinayo ama arrangementka kaarboonku isku qabsanayo marka labada erey la isku geeyay ayaa macnaha soo bandhigaya marka isomerisku waxay leeyihiin same molecular formula different structural arrangement ama different carbon arrangement ay ku kala duwan yihiin haddii la doonayo in la raadiyo isomerka oo isomer haddaan doonayo inaan raadiyo waxaan eegi doonaa qaacidadan baan isticmaalaya waa 2n minus 4 2 raised to the power 2 oo dhakada laga saaray jibaar ah minus 4 4 minus m power minus 4 plus 1 markaad eegto waa laba waayahay xagga sare waxa ka saaran n oo laga jaray 4 oo loo geeyaa marka qaacidadaas la isticmaalaa iminka masalan haddii aan doonayo hydrocarbon leh oo alkane oo ka kooban 10 ama idhaahdaba 5 carbon 5 carbon buu ka kooban yahay waxay u taagan tahay number of carbon atoms halkaas aan ku bedelayaa marka waxaan leeyahay 2 into power n minus 4 plus 1 tana labada haddaan kala gooyo maxaa soo baxaya waxa soo baxaya 2 power 1 plus 1 haddii 2 lagu jibaaro hal waa labadii weeyaan hal lagu gee waxa soo baxaya 3 ayaa soo baxaya marka 3 isomer ayay yeelanaysaa 3 isomers ayay yeelan doontaa haddii aynu ka hadalno ama aynu tusaale ka bixino waxa lagu yiri right waxaad qortaa 2 structural isomers laba isomer oo kala duwan oo qaab dhismeed ahaan ku kala duwan oo ay leedahay butane ayaa laga doonay butane labada isomer ay leedahay aynu eegno sida loo sameeyo tan marka ugu horeysa adigoo aan isdhib ahayn waxaad qortaa waa butane waa 4 carbon erga butane wuxuu tilmaamayaa waa 4 marka 4 carbon isku xidh 4 carbon isku xidh kada 4 carbon isku xidho qaab 4 carbon structure-ka koobaad wuxuu noqonayaa isomerkii koobaad ee uu sameeyay tan marka ka isku xidho isagoo straight waa first isomerkii way this is waxa weeye the first isomer
waa isomarkii koobaad second isomarku muxuu noqonayaa waxa isku xidhaa 3 kaarboon oo kamida silsiladda midna waxaad ka dhigtaa branch مثلا midna branch ka dhig that means waa afartii kaarboon oo mar isugu xidhay straight marna 3 baan straight ka dhigay midna branch baan ka dhigay way marka haddaynu xabadda ugu horeyso oo kale dul istaagnaba hydrogenadii ayaan ku muujinayaa kana waa 2 hydrogen kana waa 2 hydrogen kaasina waxa way 3 hydrogen kan imika haddaan sawirayana kaas 3 hydrogen buu qaadanayaa kana 1 hydrogen kaasina wuxuu qaadanayaa 3 kaasina waxa weeyaan 3 marka magac ahaan way ku kala duwan yihiin xagga property-ga way ku kala duwan yihiin marka aad eegto astaamaha way ku kala duwan yihiin way inta badan marka isomeriska laga hadlayo kaarboonka koobaad iyo kaarboonka labaad iyo kaarboonka saddexaad saddexdaas midna ma sameeyaan waxa isomerisa laakiinse kaarboonka afraad laga bilaabo ilaa inta dambe oo dhani waxay muujiyaan isomeris ay muujiyaan way properties-ka ay leeyihiin isomerisku properties-ka ay leeyihiin isomerka haddaynu ka warramano waxay leeyihiin marka loo eego straight-ka kuwa toosan straight-ku waa kuwan aan wax side aan lahayn isla markaana kuwa silsiladda toosan ee waxba ku dhegsanin hareeraha waxba ka dhegsanin wana waxa waa branched marka haddii isomeris ay maadaama branch baa imanayaan marka laga hadlayo straight-ka iyo branch-ka la isbarbar dhigayo lower boiling point than straight chain straight chain-ka haddii loo eego lower boiling point-goodu waa uu ka hooseeyaa marka loo eego straight chain-ka alkane-ka waxaanay ku gubtaan oxygen ka yar oxygen yar ayay ku gubtaan oo gubashadooduna way ka hooseysaa wayna ka boiling point hooseeyaan xagga gubashadana waxay ku gubtaan oxygen yar ayay ku gubtaan waayahay marka cashirkeennii oo aan maanta kaga hadlanay types of formula soo kale kaga hadlanay isomeriska labada qodob aynu kaga hadalnay hadii Ilaahay ogolaado halkan ay inoogu joogo waxay cashirka inoo xiga ayaan ku kulmi doonaa insha Allah taala wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh